gurigan hadda dhamaystirkiisu idiin muuqdo waxa ay hooyo waris amiin cigaal ay dhidibada u taagtay 23 bishii 11aad ee sanadii tagay ee 2018 kaasi oo ay ka samaysay caagadaha dadku biyaha iyo sharaabka ka cabaan ee kala duwan. Gurigan oo ah hal maqsin waxa ay ka samaysay caagadahaasi dadku ay ka cabaan biyaha iyo sharaabka noocyadiisa kala duwan isla markaasina ay dadku khashin ahaanta isaga qubaan. Bal hadda aynu eegno qaabkii ay hooyo waris amiin cigaal u bilowday gurigani caagadaha ka samaysan. waxay igu dhaliyay maqsinkan aan dhisay maqsinkun ma dhisayee intii aan ka gaadhay waan dhisayaa waayo reerkaygu uu badan yahay uu balaaran yahay dabeedna waan u dhisayaa iska qaadama dharkaan badanna waan hayo dee lacag ma haysto caagadaha dawladdii hooseba uu itaal weyday baan anu hargeysa ka doondoonaya dabeed waa inaan kolkaa ka dhisto 4 iyo 5 maqsin. guriga waa la igu yeedhay waa caagadu ahaa anigu farsamayaqaan dhagaxa jaajuurka dhisi jiray deetay markii dhis la yidhi caagad bay ka salbatay horta adigu seeskii baan qodnay caagadii waa weynaa waan dhigay midba mid way iswaafaqi weyday deetay waxaan idhi midba mid way waafaqi weyday deetay waxaan idhi caagadayaa ka dhisi kara waxba midna way istari weyday yoom dhammaan shaqaynayay 49 xabaan saaray midba mid marka qabay weyday waxaan idhi cid kale ugu yeedha meel kale laga dhisaa bahalaan oo si kale lagu dhisaa baan idhi maantana inta maraysa oo anigu horta yaabkii ugu weynaa marka qaaday meesha. hal abuurnimada hooyo waris amiin cigaal ay la timi waxa ay noqotay mid guuleysata imikana waxa qolkan la degan yahay oo ay awlaadeedu degan yihiin muddo 7 bilood ah. hooyo waris amiin cigaal ayaa waxay 5TV uga warantay maraaxilkii uu soo maray dhismaha gurigani iyo sidii ay uga midho dhalisay hadafkeedii ahaa in ay dhisato guri ay iyadu hindistay. waris amiin cigaal hindisaheedii kaliya kuma aysan dayn halkaasi qol balse waxa ay binaysay guri dhammaystiran oo ka kooban caagadaha biyaha iyo sharaabka laga cabo ee qashin ahaanta loo qubo oo haatan kira loogu jiro ayna ka soo gasho lacag waxtar u leh qoyskeeda. gurigan ay daawadayaal halkan ku sugannahay waa guriga hooyo waris amiin cigaal oo ay ka farsamaysay caagadaha dadku sharaabka ka cabaan. hadda waxa garabkayga taagan hooyo waris amiin cigaal bal hadda gurigan nooga warbixi marxaladaha uu soo maray sidaad ku dhistay fikirku goorta uu kugu dhashay bal ka warbixaad. hooyo waxa weeyaan gurigan aniga dhisay fikraduna haddii ay igu dhalato goortii aniga ay igu dhalatay ee anigu aan u baahday ee igu dhalatay kolkay igu dhalateen anigu u baahday aniga dhisay caagadahana waan ka dhisay caagadaha haddii aan ka dhisay ma dhibaatay leeyihiin maxaad iga weydiinaysaa hooyo bal ka waran macnaha gurigan uu ka duwan yahay guryihii kale ee ay dadku dhisanayeen waxa laga yaabaa Hargeysa inuu kanu kaliya ku yaalo oo fikirkuna adiga kugu dhashay maraaxilka uu soo maray iyo inta ay kugu qaadatay dhismihiisa oo iyo hadda uu gabagabay yahay oo la galo bal ka waran wuxuu hooyo igu qaatay aniga wax badan iguma qaadan kolkuu igu dhashay ee aan bilaabay aniga uma guri la'aan iima geyn gurigaas waa 6 maqsin oo wada aragtaa halkaas uu iga dhisan yahay kaasina waa 5 maqsin oo wada aragtaa iyo halkaas uu iga dhisan yahay reerkayguna waa reer ballaaran oo kaana way galaan kana dhisayna way galaan sidaa awgeed guri la'aan iima geynne aniga uunba fikradaydu ii geysay iyo wax qabadka Soomaaliland ugu horeeyay wax qabadka Soomaaliland ugu horeeyay yani ii geysay u geeyay inaan ku tusana anaga idin way wax dhibaato ah ka soo martay ama oo inta guriga dhismiisa ku jirtay ma jirtaa maya wax dhibaato iga soo maray aniga uunba tashanayay aniga uunba dhisanayay aniga uunba dhiganayay marka sibirkana waan soo iibsanay wax kalena igama gelin caagadaha suuqa daadsan ee dawladda hoose waxba ka qaban kari weyday aniga ka soo gurtay gaarigayga ka haystay oo soo gurtayna ciida ayaan ku gurday ciid ay dabadna waxaan ka samaystay guriga labana ma sibirna ma intii la kala hadda imika guriga waa kan uu dhamaystirmay adigoo marxaladaha badan soo maray bal hadda gurigii ka waran imika guriga anigu 7 bilood baan galay imika 7 bilood iyaan guriga galaa umana baahniye iyaalka tahriibta tagaya baan idhi waar bal daawado waxaan ka adeeg la dhiso iyaga baan ku mashquuliyay Soomaad garan tahriibtina haatan waa laga nastay marka 7 bilood ba guriga la galay alxamdulillah rabbil caalamiin shukrilah ilaahay mahadiyo dhibaatana igama gaadhin wax dhibaato iga soo marayna ma jiro wax dhibaato iga gaadhayna ma jirto haddaan ugu badanahay ciidda iyaan ka soo guranaya meesha la yiraahdo Arabso iyaan ciidda ka soo gurtay waar kolkaas suuqana waxaan sidii bilaa isku xigxagatay dawladda hoose ee kolba eriyana saa qof kaariyoona wata waan uga tagay marka sibirkaan iibsaday wax qarashoo iga galayna waa sibir
ugu dambeyn dadka adiga kula midka halabuurkan kale ku jiro maxaad kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa qofku haddii wiileen isaga damiirkiisa le muqdiisa intuu sheelo inuu isagu maskaxdiisa ka keeno wixii uu qabsanayo ama cawsan noqoto ama qoryaha noqoto ama geedaha noqoto ama ha noqoto inaan caagadeey qof walba deeyay tamartii qof iyo tamartii way ma ku tala jirtaa guriyo noocan oo kale inaad sii dhisto ama fikirka sii badiso dadka u sii gudbiso ma kugu jirtaa fikirkaas dadka inaan gudbiyo jirideedii dadku waa u arkayo Hargeysa bartankeedu weeyaan qofna uu gudbinayo mikrofon u qaadan maayo qofna oran maayo kaale dhiso laakiin qof waliba ha arko oo ha yimaado anigu hawshan qabsaday inaan qabsado inuu isna qabsado maqsinkan ma hay kuwa kalena ma ku tala jirtaa guri baan ka dhistay anigu imika 7 maqsina gurigaana waan kiraystay oo lacagtiisa oo caagadahaas oo kala oo mooye saxaha isku simanuna mooye saxu waa kala laba waa kala saddex malaha ma aqaano laakiin waa xabada dhexe xabadaan ka dhistay gurigaasna waa 7 maqsin 250 uu igu kiraysan yahay oo dollar kaasi aad dhistay noqday midkii ugu horeeyay ee noociisa ee laga dhiso magaalada Hargeysa oo ay hirgelintiisa lahayd hooyo waris amiin cigaal isla markaasina ay ku guuleysatay in ay dhamaystirto iyadoo ka samaysay caagadaha biyaha iyo sharaabka laga cabo isla mar ahaantaasina haatan kiro loogu jiro waa boqor Axmed Cabdi 5TV